بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan salaaminaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo joogaan. waxaan ku salaaminaa salaanta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. galabta oo ay taariikhdu tahay 18 Oktoobar 2019 galab Jimca waxaanu soo booqannay annagoo soo indhaynayna aagan iyo xaaladda uu ku jiro. halkaas oo ujeedaan waa dekadii Boosaaso. gaarkanna waa aagii Nafish. waxaan rabnaa bal inaanu maanta ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan gaar ahaan shacabka Puntland aanu u soo bandhigno xogta ka jirta halkan iyo qaabka u egtahay xaaladaheeda duruufaha ka jira iyo dhammaan wixii xeendaaga oo halka ku dahaaray inaynu dhammaan bulshada Soomaaliyeed wadaagno. si aad u jeedaan arrin waa xeebta dheereed aagaasna waa aagii dekadii dhanka kale oo macmalka ahayd. waxaan u jeednaa dhankan inay naga xigaan maraakiib badan iyo doonyo ku soo xirtay halkan walow ay silic iyo rafaad badan ay ku soo galeen baddii iyo dekadii oo hoos u dhac ku yimaaday intii mitir ahayd oo dhulka ahayd oo dib iyo waxa weeyaan ciid iyo waxyaalo badan ay ka buuxsameen maraakiibtii badankood oo ay soo gali waayeen dekadii dhibaatadaas oo dhan baa ka jira. markaana waxaan xukuumadda Puntland ka codsanaynaa in wax laga qabto dekadan sidaa ku sii jira xaaladdan iyo duruufahanna ka jiraan iyagoo dhan dhammaan og yihiin. aaga waa Nafish waa meeshii laga kiciyey ganacsatadii Soomaaliyeed khaasatan reer Puntland ka shaqaysanayay hooyooyinkii iyo dadkii ka ganacsanayay laga caadiyey oo dhanka kale loo raray iyadoo walow laftigeeda dhaqaale burbur badan uu ku yimi waxa weeye dhaqaalihii hoos u dhac ku yimi waxa ay dadku inay halkan ka xamaashaan halkan in dhaqaalaha lagu kala weedaarsado kalluunka in halkan lagu kala gato. marka halkan waxaad moodaa dekadii wixii ka soo bixi jiray dhaqaalihii Nafish ka imaan jiray kalluunkii isweedaarsiga iyo waxyaalihii ka soo bixi jireen waxaa moodaa inay waxaasoo dhan hadda istaageen oo waxa weeyaan dalku iyo waxa weye dhaqaalaha halkan ku jiro hadda hoos u dhac weyn uu ku yimi waa mid ay sababtay xukuumadda Puntland. haddii wax laga qaban waayana dhaqaalaha Puntland inay xoogaa hoos u dhac weyn ku imaanayo. marka waxaan u baahannahay dardargelin lagu sameeyo in Nafish la furo in dib ganacsatada loogu celiyo ganacsigooda kalluunka ay ka shaqaysanayeen in dekada la furo la weynisiiyo mashaariicda la ballaariyo dadka lala wadaago. maanta intaanaasaa soo booqannay dadkana waanu la wadaagnay duruufaha ka jira. asalaamu calaykum.